بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحابتا مقالي كحدا هذا Soomaali samawada YouTube dhammaan wada soo dhawaanayna marka hore inta sugan ugu soo qortana waxa la soo dhawaada inta ka socota Mayrocho family dhammaan aad baan salaamayna kaliya labaad aad baan salaamayna sharaf iyo karaama aad haynaa waxaan leenahay insha Allah la sii jooga inta cusub ugu soo baraysan waxaan leenahay soo dhawaada insha Allah barnaamijkan aan barateen aalaba maan waqti walba inii soo jeedno oo kala barnaamijkan waxa weeye barnaamijka baraarujinta bulshada oo taqaanaan BB saddexda B ama triple B marka barnaamijkan waa barnaamij aad u taxanaa noqon doona insha Allah familiyada dhan ka hadli doona oo ka soo qaadan doona qaybo badan qaybtii hore iyo waxyaabeen ka soo hadalay intii daawaneysayna insha Allah waxaan ka hadlaynaa familiyadii iyo maaragtay family guud ahaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين هبين وناكسان مالين وناكسان وحقولوا لي قف استبع اللي أصدحي حياة طيلانا يكون وناكسان هادو هبين كانوا عايشين بحيث السلاسدو سوق ليس أربعضو وحان سوق دينينا أو إنبتشوك تأى برنامج كيغا دولبي صدح البيئة يعني soo dayn doonaa insha Allah wuxuu ka sheekaynayaa waa laba baarti wuxuu ka sheekaynayaa familiga wanaagsan iyo bulshooyinka quruxda badan ee uu kaga jiro bulshada iyo familiga burburay halka uu ka taagan yahay bulshada ayaan ku soo qaadan doonaa mid habeen ma sha Allah la socod wanaagsan inta nala socotana waxaan leenahay aad baa u mahadsantihiin ما شاء الله انت نوع عصب نوتمنا وحنا welcome ادبني دي سو دوينينا سو دواده ما شاء الله Soomaali oo dhan waa wada jecel lahay insha Allah meel kasta ay joogto anna waxaan u soo gudbinaynaa waa wax aan isleenahay waxbay ka kororsanayeen bulshadiinu ma sha Allah marka ina nagala faa'iideysataan ayaan idinka sugaynaa sax yes exactly barnaamijkayga haddaan insha Allah aan ku bilowno muhiimadooda waxay tahay walaalayaal inta nala socota mar walba like subscribe iyo share insha Allah waxagiina insha Allah taantii ma koodo intii waa xagiina insha Allah waxaan ku bilaaban doonaa caawa barnaamijkeena family ama qoyska ku salaysnaanta diinta islaamka ama ku dhisan yahay family ku dhisnaada number 1 waxyaabaha muhiimada u tahay in ku dhisnaado family one example waa ka soo qaadan doonaa insha Allah iyadoo kalena iyaduna ra'yigeeda ka hadli doonto ra'yiga koowaad oo ah inay hooyadu muhiim u tahay number 1 maxay haday inay maaragtay in hablihi iyo kala inay maaragtay ku daydaan maamadiina inay maaragtay maxay haday asurto mar walba oo maaragtay xijaabkeeda iyo maaragtay qaato markay hooyadii asturan tahay inagoo waliba dadka qurbaha jooga caruurta yar ama hablaha yarna waxay egtaan hooyadu marugsadata waa very important sawaha aan maxay ahayd taan isku soo qaaday example-ka waxay ka mid tahay imika iskuulada oo kala markay caruurtu tagaan waxa la weydiiyaa meel lagu qasbaa jilbaabada iyo waxyaabahaas la weydiiyaa su'aalahaas la weydiiyaa ama iskuulka ha ahaado ugu hooseeya ama la ugu sareeya ha ahaado siyaabo kala duwan waa loo soo galaa oo ah in maaragtay waxaan uu ku baqtiinayaa maxay ahayd wax lagu oranayaa kala uu kulul yahay ma qaadi kartid energy badan buu ka luminayaa adigoo aad u kululaanaya marka maxaa ku kalifayaa waxa meelo badan baa laga soo maraa ay tahay timahaaga adag oo qarnaysa waxyaabahaas oo dhan ay ku leedahay carruurtiin oo qurux badan maxaa qarnaysaan waxyaabahaas marka hooyadii haday mar walba ay maaragtay xiran tahay asturan tahay oo ay si qurux badan ugu sheegto oo aan maxay ahaydeen aanay qasab ahayn aanay ku qasbaynin mihiina iyadoo sheegaysa si qurux badan diinteena soo baray oo ka shahayn mariyaha qofku asturo ama madaxiisa asturo ama magaranaysa waxyaabahaas oo kala mar haddii ay maaragtay boqolkiiba boqol hooyadu tahay qof mar walba asturan oo maaragtay iyadu maaragtay sidii dee Ilaahay sheegay raacday oo hooyo wanaagsan maaragtay diintii ku salaysan oo maaragtay qurux badan oo maaragtay asturan noqoto in carruurtana ku dayanayaan ama hablaha ay ku dayanayaan hablaheeda yar marka waa muhiim taas insha Allah waa example ka raadin soo qaadi doono maaragtay inay diinta ku salaysan tahay qayb ka mid ah waa dab horta diintu ma sha Allah tabarakallah waa diinteena diinka maxaani ma jirto diinka qurux badan ma jirto diinka labis wanaagsan ma jirto
inaynu ku dhaqanno oo mar kasta aynu maxay tahay aynu siday tahay u raacnana waa waajib hooyaduna marka la yidhaahdo family waa kaalinta ugu weyn iyada haysa waayo tarbiyadda caruurta korista caruurta wuxuu sheegidda caruurta maxay tahay la joogista caruurta hadaaqa inay barayso caruurta inay diintii barayso inay iyadii fiirinayaan inay daba socdaan waxa oo dhan waxay ka bilaabmaan faamiliga hooyada marka faamiligu mar kastaba hooyadu sida ay tahay ayaa ka yaryarina noqonaya ciyaalka yaryar hooyadu hadday asturan tahay ayaguna sida hooyadood unbay noqonayaan haddii maxay ahaytoy hooyadu dee iyada laftirkeedu wax ka yarsi yihiin ayagu siday doonaan bay samaynayaan marka waxaa jirta iminka caruuraha yaryar ee xijaabka qaba waa sida rashidiin sheegay iskuulka waa la weydiiyaa miyaa laydinku khasbiya waxyaalahaasa la weydiiyaa caruur lagu khasbay inay jirto anigu uma malaynayo laakiin caruurtu waxay gurigooda ka aragtay amba dhaqanka gurigooda ka jira ayay jeclaystaan dabcan hooyadii iyo aabihii ama hooyadiiba aan u forkalaarayn waxa ku duugan caadi aad way dhici kartaa marka waxa la yidhaha hooyaa mar walba qosto qaado yaa boo sheegayaan waxyaabahaasna ina qofka wax qosabto lama baahna khasab ma mudna inaad jalabiibka ugu xidha amba darxadda ugu hagoojiso laakiin jacayl isaga ku abuur horta inuu jeclaado waxa ka dambeeyana u sheeg maradan yari la huwanaya wax macnaa ma sheegayso laakiin maxaa loo huwan yahay macnahee loo huwan yahay waa inaad ilmaha bartaa ilmuhu guriga markuu joogo inuu kaa arkaa adigii inaad huwan tahay inaad tukanayso waa inaad ilmihii leedahay soo qaato salliga aynu wada tukanno waa inay ilmihii macnihii wixii ay wada arkayaan qof kastaaba isugu isxilqaamaya markaasay la qabsanayaan waa ilaahay markay yar yihiin ilaahay markay ay soo korayeen caruurtii markaa tarbiyadday qaadanaysaa marka la su'aalana dee wax la khasbay ma jirto ee iyaga qalafkooda u sitaa kuwa la khasbayna anigu waxaan u malaynayaa inaan guul laga gaadhaynin waayo qofna waxa laguma khasbi karo caruuraha wadamadan joogaana khasabba dee ma qoraan marka hablana weliba marka ay yihiin marka wax kastaba tartiib qurux badan ayay maamadu uga dhaadhicisaa marka waxaan leeyahay maasha allah maamooyinka ku dadaala caruurtu inay dhaqanka fiican iyo diinteena ay barato iyo xijaabkeena waa muhiim ilmahada yar inuu kuu barto xijaabkaada gabar yaroo madax qaawan amba gabar yaroo shaariyo surwaal way wada sitaa laakiin shaariyo surwaalka kurdad bad kaga bilaabaysaa markay weynaatana waxaan kugu uriyay waxay soo xidhanaysaa tuubkeeda yar surwaalkeeday wadataa hoosta ka wadataa dhaxalkeeda yaran way xidhan tahay adigu tarbiyad ahaan amba waalid ahaan wixii kugu habboonaa waad qabsatay waajibaadkaada waad ka soo baxda waa inaad laakiin yes ilmaha yar ma aha isagoo weyn amba 10 jir amba 10 jir qaado maka aqbalay laakiin ilmahayga marka uu jiro halka sano ayaan u xidhaa halka sano buu ku tagaa maxaad ku soo xidhaa ekraane wuu isku baqtiinaya wax isku baqtiinaysa ma laha baan ku yiraahdaa marka waana i weydiiyeen ma adaa jecel mise iyaga jecel baan ku yiraahdaa dibadda uma bixi karaan hadaa ku dhaahdaa leexada ku soo ciyaara iyagoo sii qaatay muulay ilaahay baa mahadle kolley anigu dadaal waa sameeyey laakiin xagga rabbi bay wax kastaaba ka socdaan aad iyo aad baan idin salaamayaa ku tarbiyaday caruurta dhaqanka wanaagsan iyo maxay tahay diinteena faamiliga quruxda badan wuxuu uu ku dhisan yahay waa diinta quruxda badan waxa ay ka soo baxayaan miladhalka amba waxa raandhiiska quruxda badan waa diinteena iyo ubadkeena sidaynu marba u tarbiyadayno marka waxaa ku dadaashaa faamili qurux badan ubad qurux badan taasaa muhiima marka ikaan maxay ahaday arrintaas muhiimadda waxay tahay qofku haddii maaragtay sidai diinteena subaniya nabiga asaasoo noo sheegay waxaa lagu dhahdaa marka maaragtay mugta dubjir gaadho oo kala in maaragtay marka lagu qasbo laakiin waxaa ka horeysa inuu qofku baro marka ugu horeysa ilmaha tarbiyad kusoo baro diinteena waa naseexo maaha wax qasab ma jirto laakiin waxay tahay ilmaha markuu hal sano gaadho inaad barto wixii shay taasay muhiimadu tahay ilmuhuna hadhow talo wixii uu la qabsanaya wuu baranaya tarbiyadduna saas maaragtay ku hana qaadaysaa laakiin maxay miyo 10 jira inaad maaragtay marka tiraahdo waa qasab diinteena waxa jira qaado diintu ilmuhu su'aal is weydiinaya jirta diintu ma intii aan yaraa ma jirin miyaa ma hadday joogo ku leeyahay adaa ka hor haystay ayagoo la socdan
كان دبنا دكان عرب وهذا دبنا وحنا ما شاء الله أنا حبلاي مقاطان سريع عربت قاطان يتوقصتي ويدي عربها راح أقول لك ما قصفين لكن دينتين وحنا برتين ما هلو صوت تربية ضايع لما كو يري لا مركب مقنعسا يري هو يبغى نقول عشان هنا أو برتين أنا ما رحت قاطان هذا إلى ما شاء الله وأنا الدكان كي ما مرتين نتعطى كحرنا marka maxay haday ma hadana ilaahay iskale haduu marka hooyada uu garansiiyay ilaahay marka yimid waxay tahay marka in qofku yaraanta dulucdeedu waxay tahay mar qofku yaraanta ilmuhu yar yahay ka bilow kama soo haray marka ka bilow marka taalkaasan kaga hadana insha Allah dadka waalidiinta ha ogaadaan inay wadamadan waliba qorbahay joogan inay ilmahooda ka bilaabaan tarbiyada markuu yar yahay waqtigana kullu min intuu yar yahay markaas aad anfacaysanaysaa 6 sanadood markuu garo 6 sanadood markuu garo isaga soo day isaga isu day lixda jirka maxay haday intee ku bixi karto haddii dibadda u baxdo aad ku tiraado orda u bax wallahi waa kulli waa marad laxsan wallahi ilaahay loogu mahadnaqo markuu 5 jiro amba 6 jiro waad ka nasanaysaa daladii uu yaqaan isagana qaadanayo wixiisa isku wada laakiin inta ka horeysa ayaad waxaad gelinaysaa waqti dheeraada energy dheeraada hadal dheeraada ina markasta wada tukanaysaa wixii soo wada qaadanaysan ay gashanayaan adigii leedahay hooyo waaniga sitee maxaa u gashan weyday caruurtii markaa wixii way ku soo celcelinaysaa faraga taganka waxay ka taagan tahay mar walba waalidiinta inta wanaagsan inta way wanaagsan tahay intaas ilaahay hawsi siyaadiyay laakiin waxaa jirta waalidiin badan oo hadallada dulqaadanin oo maaragtay wadka kala ilmuhu markuu yar yahay laga soo bilaabo 2 sanadood horta waliba markuu 4 sano madaxa la galo oo markuu faraga tagan oo markuu halka baday su'aash walba wuxuu doonayno aadiya koobkan waa maxay waa shaah maxaad soo shubatay waxaan soo shubtayna muxuu tarayaa koobkaas 2 sanadood ka weydiin marka waa inaad dhigaysataa marka waan dhigaysto wali uga jawaab aadiya su'aashi walba hadii kala aad ku xirin oo iriyin ilmihii waxba ma baranayo horumarna ma sameeyay marka su'aashu waxay tahay maxay muhiimadu waxay tahay inaad dulqaad la sameeyo yareeyno faraga tagan bal yaqaan calaamad su'aal shaaran mar walba su'aal ku weydiin marka soo ku jira haga su'aal ku weydiin hagaad ku socotaa maxaad doonaysaa maxaad u socotaa ma soo noqonaysaa maxaad sameynaysaa wixii hala joogtaa wixii isagu ma daalay adiga laakiin inay ku daaliyaan baa dhici karta marka waa inaad waqti aad qaadataa waayo adibsani wadankeeni waxa laba dhageysan jiray waxa ku war naga tagaana wareerinimad oran jirtay laakiin sareexan halkan ay wadamadan ay joogno reer galbeedka ma jirto orod naga tagiyo sheekadaasi marka waa inaad ilmihii aad u dhigan nugleeta aad distaa aad waxa ku uriyay ka saartaa su'aalaha faraha badan leh saan kugu soo celcelin aad u dhamaystirtaa wuxuu uu ka doonayo markaas uu qofku waxa noqonayaa su'aasha ku dheeraanay waxaan ka hadlaynaa qodobka labaad oo ah maalinta familiga ma leedahay familiyo ma leedahay waqti maalin adigu ay iska leedihiin oo familiga oo dhan oo amba cashar sameeya amba waxaan ku wariyo gurigeena ka shaqeeya idinku ma leedihiin jalwal caadi ah ku dhaqantaan yes haday su'aashaadu tahay aad baad u fiican tahay qofkuna waxa fiican maalin kasta inuu jalwal u degsan yahay jalwalka maalin kasta degan waa mid iska macruuf oo lagu dhaqmo laakiin ka familiga wada fariisiga familiga aba wax wada qabadka familiga waa mid gaar ah ka baxsan jalwalka kale marka hadii inta leh waan leeyahay si wada inta aan lahayna sameeya qalanka marka muhiimada maalintaas ay leedahay hadii maartay memberka familiga qof kasto guriga kamid ah waa member waa in la dhigeysto muhiimada tahay in maartay wax loo soo bandhigo in maartay hadii gurigooda la bedeliyo hadii la hagaajinayo in wax laga weydiiyo muhiimada tahay ama qaadan hataa doonto oo ku saadto ku qanay maaga laakiin muhiimada waxay tahay in la dhigeysto inaad soo dhigeysto taasi meeyta adigana way ku anfacaysaa hadhow tolin ku dhageysanaya markuu in afeenmi uu soo kaasoo tagay marka waxaad yaraanta aad maartay yaraantoodii aad maartay aad ku tarbiyadaysaad barto ayaa hadhow tan weynaantoodii kula soo noqonay marka family day muhiimada waa taa aad bay muhiim tahay family day
oo maaragtay haddaa u baahantiin maalintaas oo kale haddaydan wax shaqo haysanin ama aydan guriga ka wada shaqaynin inaad barto muhiimadda inaad guriga ka wada shaqaysaan ama aydan dibad u baxaynin oo aydan maaragtay meelaha hodheelada oo kale aan degeynin maalintaas oo kale bishii ama marka dhigo ama labadii week marka dhigo qofku isagu sida taala family day-ga wuu samaysan karaa very important family day amba dibad kusoo nafisa oo soo wada qaata caruurtaada waqti amba guriga ku wada qaata amba gurigiina hawlihiina ka qabsada amba quraankii diyaariya oo maalinta xitaa casharada ka baxaysaan maalinta ku qorta laakiin waa inaa yeelataan jalwad ku shaqaysataan maalin idinka faahida idin gaar ilaa maamo ilaa aabe ilaa ka u yar hooyooyinku waa important waa maalmahoodaasoo wax weeye aad bay ugu niyadsan yihiin in loo sameeyo family day-ga qof kasta ugu niyadsan yahay weliba maamooyinku waa very important maalintaasoo kale waa maalintii maaragtay u baahan yihin family haddaad doonto adigoo kalaa maalintaasoo kalaa maalmaha hadduu qofku ka dhiganayo weekii marka dhiganayo kalaa isagoo taa loo samayn karaa oo maaragtay weliba very important waxaa ahaa sida anaga samaysana family day-ga oo kalaa weekii mar in laga dhigto oo kalaa haddii maaragtay maalinta hooyada ay maaragtay shaqo leedahay oo kala ama guri ka shaqaynayso maanta halaysturisteedka meelaajinta maanta oo kala inaad maaragtay carruurta kala kaxayn karto family day aad kaxayn karto maalintaas oo kala hadhow toleed lasoo wareejiso hadhow toleed lasoo raaci kartaan restaurantiga ama hotelka oo kala family-ga oo dhan qof isagu soo doono ka dhigan kara taas waa muhiimkaasna waa balaan waa qodobka labaad qodob kasta waxaan ka hadlaynaa oo aynu insha Allah in yar ku yara dheeraan doonaa isoo waqtigii 22 inagu dhaafay 10 daqiiqo insha Allah caawa waxa weeye labada qof family konkooda ama ka bilaabmo iyagoo ay lahaadaan macnaheedu gooni waqti gooni ay ku tashadaan oo dadka ugu sarreeya guriga inay mar iyagoo waqti gooni lahaadaan labadii bilood mar inay ka dhigtaan bishiina mar ka dhigtaan hadday wax ka bedelayaan guriga sharcigiisii hadday maaragtay laftooda iyaga laftooda soo wada in la isilaawo maaha inkastoo dee aan la isilaawanayo gurigii la wada joogo haddana in la isilaawo maaha qurbaha dadka u isilowsiinaya qurbahan qof kastaba dhinaciisa u daalan yahay waa la isilaabayaa qof kastaba isagaa burbursan marka in la isilaabo maaha waa inaad nafis soo qaadato waqti soo qaadataan وين عروض وقت سمايسان ومعني مسكحة وإن الدالكن كسو بدنيا ما نكست الدال فرابدن بمسكحة هذا السوق لي وإن تبض كريسة وإن تطورتها وكان هذا تطور واد بحيث هو تايم أنتس وحيد وتخي إن بحيث توي دالكي waxyaabo badan oo ay chance weydana ku hadashaa daalkii badnaa inuu ka baxo in maskaxdaada inay soo nasato in hadallo markii hore dee aad waqtiga u haynin inaad deganaansho u hesho in maxay tahay aad hawo qaadato oo maxay tahay aad qofku marka uu amba shaqaynayo amba guriga joogo amba hawla ku daba xiriiraan waa jeel yaro qofleen maalintii oo dhan labada kale qof kala shaqo tagaan shaqo qabtaan yarkii iskuulka haddana guriga limaado wax la karinayo haddana shaqooyin kale lagu jiro la shaqaynayo ama dad caawinaysaan oo kala haddana cuntooyinka yarkii kala sii haddana dibadna iyagoo baralaati firaati marka jeelka yara qafilan ka baxa oo hawada qaata marka waxay baahan tahay ina maaragtay qasina yar qaadataan bishii qalamar iyagu qofka isagu suganayanayo jecel yahay marba sidoo kale dadku u kala bateen laakiin rashiido mid baa halkaa ku yar jirta mana doonayna inaan video ka dheerayno maxay tahay mid baa halkaa ku yar jirta familiga hawada wada qaadanaya amba balaankan idin sheegaya dhiganaya amba waxaan ku guri hawlahooda ku mashquulsani waxa weeyaan family aan inaba caadi ahayn oo isku duuban weeye familiyadoo dhan ma aha marka ujeedadayada muhiimadda aan meesha ka leenahay waxay tahay in la isku duubnaa family qurux badan la noqdo oo tugada ah oo reerka wada ilaalinaya oo iyagu isku kalsoon oo daacadnimo jirto والله فردك وديرك dadkii horeba nafka waaye marka fadhiku dirirka 10 baa laga soo bartaa 10 fara badan baa laga soo bartaa laakiin 10kaas marka laga barto waa in loo noqon doono qaar badan oo abayla orata nagu dirirka ma badaha ma gareyno laakiin noloshu waxay ku jirtaa family qurux badan family qurux badan in la noqdo oo wax wada fahansan
oo isku aragtiya oo maxay isdhegaysanaya oo daacad isu ah taasaa family qurux badan ku soo baxaya amba hawa qaado amba gurigaada ku jir markasta adigu waad faraxsan tahay marka inta aan hawada qaadanin amba farxad helin waxaan leenahay farxadda hala kordhiyo hala isu soo dhawaado taladeedana anagu talan baan soo jeedinayna iyo naseexo koob dheero Herbalife shaahna waan wataa maasha Allah muhiimaduna waxay tahay walaalayaal quruxdu waxay tahay diinteena soo qani waa naseexo nabiga soo xiri diinna naseexo diinteena waa naseexo marka muhiimadu waxay tahay wax walba oo wanaagsan waxay ku yimaadeen wanaag waxba kuma yimaadaan isku taag iyo hadalla iyo isku qaylin iyo alool wax isugu hayn iyo waxaas waxa weeye xog marisma marka muhiimaduna waxay tahay inaan maaragtay family qurux badan aad doonayso waa inaad maaragtay disto waqti maaragtay marka waxaad leenahay walaalayaal wixii tale wanaagsan qaar warnay dimala laakiin waxaan anoo ka sheekaynaynaa leenahay qofkii wanaaga qaadanayana ilaahay wanaaga u siyaadiyo wanaaga ku anfaco anagana ajira noogu qoro waxyaabahan siinayno iyo sida waxyaabaha qurux badan ee maaragtay dadka ugu badan ee bulshada xaqiiqatan waxaan jecelahay anagu family qurux badan inta soo socotee soo kacaysa familiya qurux badan inay samaystaan noqdaan inta hore in familiya isku faraxsan dadooda wada fahansan qurbahan lagama baxo dadaan isfahansanaynin burbur fara badan baa ka jira cadow fara badan baa ka jira marka waxaan leenahay tugada ha la ahaado maasha Allah Soomaali oo dhan waxaan leenahay familiya qurux badan ayaan rajaynaynaa inay ka soo wada baxaan dhammaan waxaad leenahay anagu caawa barnaamijkiisa in masdexda qolo lagu miisana habka hadlayna intaas ahayd waxaan ku soo dhammaantay waxaan leeyahay aad baan idin jecel lahay sheerta like-ta commentiga intuba waa xaggiina maxay ahayd taageerada iyo markasta in la is caawiyo waa muhiim okay waan soconaa weegan oo safar baanu nahay insha Allah safarkaygana waa idinla soo socodsiin doonaa haddii aanu nabad qabno insha Allah isu soo ducayno dhammaantiina waxa inoo ballana maxay ahayd inaynu ahaano dad isku duuban oo qurux badan oo familada ka shaqeeya insha Allah ilaahayna waxaan baryaynaa intiina maaragtay familiyadana tawatanayno insha Allah ilaahay gurigiina أو هذا حاسين iyo qurux badan ina sabaysanayso dulqaadatan inuu qofka loo dulqaato in maaragtay qofka aad u aragto inuu qofka carisay iyo shaytaan ku qaado inuu qofka kalena insha Allah sabar sameeyo in maaragtay marka kale qofka uu carisay inuu qofka kale dulqaad ka sameeyo taas muhiimadu tahay in la ixtiraamo oo maaragtay aan laga badbadanin aad إن شاء الله ساسا إنه بالله إن شاء الله بريمة هيساعدنا إن شاء الله كبحنا برتاحنا وبحنا إن شاء الله سمينار أنا جاي ولا عليه بدنا إن شاء الله سكون دونا أدو إنتي دونا كنت قرأوا أو لافيان داني بقول بقارن دان أقرأ لافيان مرة داني بقول بقارن إنت سومالي أنا سكون إنه فاميليا wanaagsan iyadoo qurux badan ma sha Allah meesha soo iman doona insha Allah waa la sheegan doona safarka ayaga ka bilaabo doona Sweden ila Germany insha Allah ay tarashadadeedana waa la soo sheegan doona la socda insha Allah halka YouTube kana la socda naga daawada insha Allah kan idin soo socodsiinayna wax kasto qurux badan iyo wax kasto farxad ku dheehan tahayba insha Allah ina daawada ka ilaalinayna samaha inta samaha jecel ay kor Allah ka dhigo ma sha Allah aad baan idin jecel lahay habeen wanaagsan maalin wanaagsan kasta basay u tahay waxaan leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh